بسم الله الرحمن الرحيم. هذا waxaan iskaga difaacayaa wax runa. Waxaan iskaga difaacayaa wax runa. Marka hore waxba kama jiraan. Wax anigu aan sii daayay oo anigu aan awood u leeyahay sii deyneed marka hore ma jirto. Xabsiga maxkamad baa wax ku xidha, maxkamad baana wax ka sii deysa. Xeeraaliyuhu xabsiga weynaa dawladdu leedahay waxna kuma xidhan karo, waxna kama sii deyn karo. لكن محكمة بقى جيسة محكمة بقى جديسة تصوير الطهرة ما كان أصلا العلماء ما كان عبانية وعندي وعند عوضي ما هي كعبانية وعدول دم جوده وضعه ودحية لباب بيروت ومنا وليه أحمد حسين دريل منا وليه المفليد ووضع كونتون من ترى سيدا وحبوت كيوسو قاري ويحولوا كأرور الشرين ولدت تتبيق عني مركا بيروه دي معها ودن دنجودة واحد دعوت كابو ري دنعي إياك قلنا نمك عبانيسا وحيوجد بيان محاكمات دم التريقة يكيس كاسو قاري طبعا ضيضنا محاكمات دم التريقة إيه حاليا من التريقة إيه اللي بدلي وحيوحد عسكري iyo laba nin oo shacab ninka askariga xabsiga ku dhintay kadib dhimashadaas madaxweynuhu wuxuu soo diray guddi baariseed oo meesha waxa ka dhacay baadhiyo dhulkan baadhitay soo saareen jawaabta lagu bedelay xeeraalihii iyo gudoomiyihii oo waxa la yidhi meel danguuda bay dad u xidheen sababtaasuna ay dhimashada ku timi saasaan nimankii lagu bedelay madaxweynena uu lagu riboodkeeyay xeeraanta guudna riboodka lagu siiyay gudida baarista saddex nin baa u xidhnaa meesha nin waa dhintay laba nin shacab ku harsanaa xabsiga oo maxkamadda ciidamada Roomaan garaysnaa dabadeed maxkamadda ciidamada Roomaan garaysnaayeen waxay u soo wareejisay qoladii dambe timi ee la soo bedelay kiiskii waxay u soo wareejiyeen maxkamadda gobolka waa maxgalkii faylkii maxkamadda gobolka oo aanu kii xeeraliyo ku jirin oo ka xeeraliyaha ay gudida madaxweynaha Hargeysa u qaateen aanu ku jirin bay u soo gudbiyeen maxkamadda gobolka anna koob bay soo siiyeen qoraal ah dabadeed markii aan kiiskaas gacanteeda soo galay qoraalkaasi gudoomiyihii kiiska baa lagu soo wareejiyay waxay markiiba aan ku warhelay meesha inay tahay meel danguuda meeshani inay meel tahay meel danguuda ay nimankan u xoriyeen haddii meeshu danguud tahayna xeeraanta qaranku dee waxay difaacdaa dawladda ma difaacdo shacabka laba shacab oo haysta dhinac ma raacdo laakiin dawladda ayay difaacdaa oo qaranku difaac iyada garyaqaanka guud marka arrinta aan ogaaday nimankiina ay xidhan yihiin iyadoo marka hore ay ahayd in maxkamadda ciidamada arrinta ay dhamayso maadaama awal bay ogaatay meeshan inay tahay meel danguuda inay dhamaysaabay ahayd iyadoo aan taa samaynin ay soo wareejisay dabeedna marka aniga waxay igu waajibeen markaan warkaa helay inaan sida ku waafaqsan article 70 inaan la tashado xeeraliyaha guud oo arado meeshan waa danguud sharcigana sidoo ka qaba maxaynu ka yeelaa maxaa laga yeelayaa hadda halkan aan ka baxay Hargeysa aan tagay xeeraliyaha guud baan u tagay riboodkii baan siiyay xeeraliyaha guud wuxuu u yeeray xeeraliyihii gudida qaybta ka ah waxa la yahay Saciid Dhagoole ee gudida madaxweynaha qaybta ka ah buu u yeeray faylkii baa la soo saaray waxa soo baxday meeshu ay danguud tahay meeshu ay danguud tahay baa la yaa cadaatay xeeraliyaha guud iyo aniga iyo Saciid markaan soo nimeeyaa faylkii Hargeysa aan tagnay Hargeysa faylkii soo saaray waxay noqotay in meeshu danguud tahay cadaymihii oo dhan haddana soo bandhigaya saxaafadda xeeraliyaha guud markuu cadaymaha arkay wuxuu igu amray inaan ka noqdo dacwadatan ana gobolka u jooga inaan dacwadan ciqaabta anigu ka noqdo qoraal u qoro maxkamadda gobolka inaado dacwadatani waa danguud xeeraantu ka qayb gelmayso gudoomiyaha maxkamadduna anigoo waliba markaa cuskanaya article 112 xeerka habka ciqaabta aan leeyahay dacwadda waa ka laabtay maadaama dhulku danguud tahay maxkamadduna way sii daysid iyadaa dee awoodda leh حق بيقولوا هنا تهود عودة والله وضيع يضع قان كلام ملهي
hadday u arkayso inay dacwad ciqaaba aan oodayo ama laabayo maxkamadda awood u leeyahay tahdo maya xeer aliya dacwadda waa la qaaday maxkamaddana way ku qaaday iyadaana sidaysay anugu ma sii dayin waxna ma sii daayaan way sida dadku waa badawi xeer alintu waxa ma sii dayso haddaan xafiiskii ka sii daayo ha inta lay keeno aan sii daayay laakiin qofka xabsiga ku jira ee garsoore rumaan gareeyay garsooru baa sii day kara waxaan u soo bandhigayaa saxaafadda madaxweynaha gariiqaanka guud xeeraliyaha guud wasiirka cadaaladda gudoomiyaha maxkamadda sare inay meeshaasi dan guud tahay oo aanay waxba ka jirin dhulkoodii way qaateen way qaybsadeen dhulkii dadka guud baa la isku hayaa qolada haysatee waxa qaar dhintay qaar shacabka iyo qaar shacabka yihiin waxay isku haystaan iyo qaar kale oo qarsoon sidaan war ku hayo waxay isku haystaan dhulkii dawladda waxaana cadeymahan u soo bandhigayaa saxaafadda inay waxaasi been sheegeen ay dan guud tahay warqadaa waxaa soo qoray wasaaradda beeraha isduwaha wasaaradda beeraha u qoray maxkamaddii hore ciidamada iyo xeeraaliyahii ciidamada u qoray waa taa iyo saldhigga dhexe kiiska baadhi wuxuu ku caddeeyey meeshaas inay tahay wadda danguuda oo layaa kabaala yar oo ay u dhaxaysa labada beerood waa kow dhulkan dacwad baa ka dhacday axmed xuseen dirir waan ka xumahay soo garsoon ahaan jiray inuu soo taago badka oo dhulkiisa waa loo fuliyey maxkamadaha racfaanka iyo gobolka iyo guddiga nabadgelyada u fudiyey iyo u fuliyey dhulkiisa waa loo xukumay dhulka ku xiga ee waddadaana waa laga xukumay wakaa xukunkii maxkamadda sare axmed xuseen dirir dhulkan leeyahay iminka ku hadlayo ee sheeganaya waa laga xukumay xukunkaa maxkamadda sare lagaga xukumay intiisina waa loo fuliyey waxa hadda uu doonaya waa dhulka danta guud isagoo 100 jira dhulka danta guud buu rabaa inuu maanta xaaraan ku qaato waaba 100 jir garan maayo wuxuu ku falaya xaaraanta gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Burco qoraalkan buu qoray guddida baadhista guddida khayr qora baadhista waa kan wuxuu ku cadeeyay meeshu ay tahay dan guud wuxuu qoray guddidii baadhista ee madaxweynuhu u soo xil saaray inay baadho kiiskan dhimashadu ka dhacday waa dan guud buu yidhi meesha tani cidina ma laha madaxweynuhuna wuu haystaa koobigan wuu hor yaalla xeree guudna wuu haystaa dhulka kan markii uu dan guud noqotay garsoore maxkamad gobol wuxuu soo saaray qaraarka wuxuu ku wareejiyey oo ku amray in golaha deegaanku la wareegaan waa garsoore Salmaan Umar Ciise oo imka shaqada ka tagay dhulka wuxuu waa dan guud dawladda hoose la wareegto qoraalkaas uu qoray waxaanu tixraacay xukunka maxkamadda sare kaasuna waa marag xeeraalihii shaqada laga fadhiisay Maxamed Cilmi Faqash markii Axmed Xuseen Dirir laga xukumay ee meesha wadda laga xukumay ee meesha wadda laga dhigay ee labada dhexda wadda noqotay ee xukunka maxkamadda sare soo gaaray tan uu soo qoray maxkamadda gobolka Togdheer iyo Maayer uu leeyahay Maayerka lagu wada shaqo dan guud intaas oo cadeymood baa cadeynaya inay meesha tahay dan guud waxaanay sheegeen waxba kama jiraan odayaasha waan xushmeynaya Axmed Xuseen Dirirna waan xushmeynaya laakiin maanta de isagoo 120 jira inuu xaaraan ku doodo waa nasiib daro meeshaas ay tahay meel dan guud wax weeyaan waa 50 mitir oo u dhaxeeya labada beerood cadeymaheedu waa kuwa haday dawladdu siinayso oo iyadoo dawladdu siinaysa aanu dawladdii ma yihi haday u diidaysana aanu dawladdii ma yihi laakiin amarka xeeraya guud ee anoo fulinaya dhul dan guuda xeeraalantu wakiil kama noqoto shacabka iyo xeeraalantu wakiil waa iska noqon haddii imika shacab iyo dawladdu ay dawladdu hoos soo qorto tiraahdo dhulkaan oo difaac waa difaacaya anoo dawladda u hadlaya laakiin iyada oo qof shacabku ku haystaan xafiiska xeeraalintu dalka oo dhan dhinac kama noqdo waan soo dhexgal ka noqdaan dawladda difaaca sidaasaan xeer guud ku amray inaan eedda ka noqdo maxaabiistana aan maxkamadda ka codsado in xorriyadeeda loo celiyo qoraalkii aan qoray aan maxkamadda u qorayna waa ka maxkamadda gobolka xeer guudna og baan siiyey tog meehi anugu xeerliya guudna
أقبنسي وأنكو شيء إنه قد إذا بارست عادية أنا غير هالقرن وأنكو شيء إنه حلاية قد كنت ليه إن دعوة الله نقضه وحبي يقوموا جي اللون بي عمبارين ستاجين وأنا عايز من كتير ريق عدالة حفيز كانوا فردي أنا قوالي يقانا إن ما أنت عدي شيء ما تطبيق تواصل لحية تواصل مع حلالية هذا من ما أنت لقى شيء ميه دول كواسيدا قلنا الصحافة دي ودول دنجود يقولون واحد ما دنجود waxay ku dacwo waxay u qeynayaan waa dangud tay dawladda siyaasadda dawladda aanu iyaga kama celiyo kow dadka waxa xidha nimanka xabsiga waxa geeyay maxkamaddii ciidamada ee hore ayaa xabsiga geysay nimankii leekii labadii wax la bedelay baa xabsiga geysay sida ku xusnaa article 46 xeerka habka ciqaabta kana isaga sii daayay sida ku xusnaa waa wanto isaga maxkamadda gobolka isaga sii daayay mooji waxay uga meermeerayaan waxaan u arkaa inay aniga target kala jiro gudoomiyihii maxkamadda gobolka ee sii daaya maxaabiista may soo hadal qaadin waxay la tahay in anigu danka ara layga lahaa kow sidoo kale gudoomiyaha la soo bedelay ee la yiraahdo Casayr kiiska gacantiisu galay intii aan la soo wareejin xabsigu tagay wuxuu u tagay nimankii xidhnaa wuxuu yiri dhulka aan idin qaybiyo idinkii qoliyaha kan way diideen iyagii baa la weydiinay dad badan madaxina waa ogyihiin markuu ogaaday dhulku dan gud yahay iyo hadduu oro ogaab halkuu sii dayn lahaa oo kaa soo wareejiyey oo talow isaguna cadaaladda xagee uu ka maray ma reernimuu isaguna maxaabiista meesha ugu sii hayay isagoo dhulka og inay tahay loo dan gud yahay oo uu ogaaday oo uu xabsiga u tagay maxaabiistii oo dhinacyada wareystay oo loo sheegay oo yiraahdeen uu dhulkii baan idin qaybinayaa ee ogolaad oo ay ka diideen iyagu la qoys yahay maxay wax u sheegi waayeen saasay uga tageen marka may taabanin manay cambaaraynin cidii xidhay markii hore iyo cidii sii daysay aniga waxay la tahay madaxweyne iyo xeelaliyo guud iyo gudoomiye maxkamad sare iyo guusirka cadaaladdu mala wax kale iga urinayaan kiisku waa sida wax dambiyana kuma lihi wixii su'aalaana diyaar baan